waaya arrinta dib u heshiisiinta cali yaxye wax badan baa ka soo shaqaysay iminkaad ku lug leedahay qoys ahaanna ugu lug lahaadeen maxaa keenay dib u heshiisiin fara badan oo la sameeyey way jirtaa in dowlad ama la dhiso nidaam kumeel gaara laga soo baxay dowlad maanta jirto nidaamyadaasoo lagu guulaysa laakiin dib u heshiisiintii aasaaska ay saldhigga ahaa oo in badan aad way aragnimo u leedahay ma is leedahay maysa shaqaynin waana sababta keenta maanta in weli nabad waarta meelo badan waddan ka mid aysan ka jirin maxamedow sida aad sheegtay anigu waxaan qabaa dib u heshiisiintii iyo nabaddii la baadigoobayey in ay badideed ahayd mid ka imaanaysay maxaa la yidhaahdaa waddamo shisheeye oo gurubyo iska soo horjeeda markaa is haysta miiska wada fariisinaysay oo ku lahayd waa inaad heshiisaan oo iyaga ay maalgelinayeen oo laga yaababa ajendaha heshiiskaasi iyaga inay go'aaminayeen taasi waxay dhashay in aanu yeelano dib u heshiisiin ama heshiisiin dhexdeena ah oo aanu dad kale ku raaligelinayno quwado kale aanu ku raaligelinayno dib u heshiisiinta dhabta ah aniga sidaan u arko waxay ka imaan kartaa oo keliya haddii dadka soomaalida deegaanada ugu hooseeya iyaga u israadsadaan oo ay isku yimaadaan soomaalida markii dagaaladan iyo dhibaatooyinkan ay ka bilaabanayeen waxaa lagu gubaabiyey oo ama laga soo abaabulay dhinaca dhalashada qabiilada waxaan qabaa in dadka soomaalida ah sidii ayba taariikhda aabayaasheen nooga sheekeeyeen in haddii colaadi timaado geedka loo noqon jiray oo la wada hadli jiray iyada oo aanan jirin quwad shisheeye oo waxaasi hogaaminaysa ama ka shaqaynaysa haddii la helo dadka soomaalidu inay iyagu israadsadaan deegaan kasta deegaanka la dariska ah ee walaalka la ah inay la samaystaan dib u heshiisiin iyo heshiis dhab ah oo waara waxaan isleeyahay waxaa laga bixi lahaa tafraaruq ama isku dhac badan oo xagga siyaasadda hadda naga haysato yaa xal loo heli lahaa haddii dib u heshiisiin dhab ah ay dhici lahayd waxaan aaminsanahay in shaqaynta dowladda iyo hirgelinta sharciyada dastuurkeena uu sheegayo inay sahlanaan lahayd laakiin weli waxaa moodaa dadka soomaalidu inay kala weli isfiirinayaan ama derbiyo isugu jiraan ama ay midiyo hoosta ku qarsanayaan taana waxaa keenayso inaysan iyaga aysan heshin anigu tusaale ahaan waxaan soo jeedin lahaa in maxaa la yidhahdaa culimada iyo dadka intellectualka ah iyo oda dhaqameedyadu deegaan kasta leeyahay in iyagu marka hore ka fariistaan dhibaatada ka jirta waddanka iyo nabad la'aanta isla markaasna ay ku casuumaan soomaalida meel walba waddanka ay ka degan yihiin in ay kala soo qayb galaan oo ay la fariistaan oo ay xal u raadiyaan haddii conflict dhexdooda uu ka dhacay deegaanada qaarkood marka dib heshiisiin laga soo abaabulay bannaanka waa iska wax lasoo dhoobay oo aanan soconaynin ummaddu mar walba waa inay dib ugu laabataa dhaqankeedii iyo marka haddii conflict dhaco iyadasay xalin jirtay inay xal sidaas u raadiso yaa xalku ku jiraa ma ahan hadda markaan soomaalida aan kala hadlayna xagga heshiiska iyo in ummaddu ay isku soo dhawaato markiiba soomaalidu laba wax bay eegaysaa waxay ku leeyihiin beesha caalamku waa inay arrintaasi hirgelisaa waxaa moodaa weli xagga maskaxda in madax banaani aysan imaan oo waxaan isleenahay qof kale wax kuu xalinaya marka taa laga soo tago haddana waxay ku riixayaan dhinaca dowladda dowladaha soomaaliya ka imaanaya ee ka jira ama kuwii jiray ama kuwa hadda jirtaba waxaanu ognahay challengiga hor yaalla mid sahlan ma ahan in dowladda wax walba laga sugaana wax soconaya ma ahan way fiicnaan lahayd haddii dowladdeenu ay leedahay awood iyo dhaqaale ay ku hirgelin karto dib heshiisiino ay dadka soomaalida dhexdeeda ay ka dhigayso waxaan fariin u dirayaa maamulka hadda jira ama kan mustaqbalka imaan doona in ay ajendahooda ku darsadaan runtii inay ummaddani uurka ka heshiiso si dhab ah inay uurka uga heshiiso taasna ay abaabusho oo ay ummadda ku guulaabiso laakiin u dayso deegaanada iyo ummadda iyaga iyo inay dhexdooda ka heshiiyaan marka dib heshiisiintu waa wax aad iyo aad loogu baahan yahay waana inay ka timaadaa dadka soomaalida